iskaashatada bajaajleyda ah ee horseed oo ah iskaashato u kala goosha xaafadaha magaalada Burco ayaa cabasho xoogan ka muujiyay maamulka dowladda hoose ee degmada Burco oo sida ay sheegeen lagula kaco xadgudub iyo tacadiye xarig xilliga ay u kala gooshayeen xaafadaha magaalada Burco iyadoo loo soo marin sifa sharciga waafaqsan waxaana kamid ah hadaladoodii sida tan waxaanu ka cabanaynaa dowladayada ayaanu ka cabanaynaa waliba si aad iyo aad ayaanu ka cabanaynaa annagu gaadiid baan casuur baan bixinaa 6 bilood baan laga qaadaa waa wada maris Soomaaliland annaga wada naga haaraansan eedhe taayirkaaga saarin ma jirto haba yaraata sharciga noo diidaya waxay leeyihiin maamulka gobolka waxay leeyihiin taliyaasha iyo barisaabadu waxay leeyihiin hambarina October annaga yaa naga haaraantimay 6 bilood baan laga qaadaa gaariga nagu dhigsan hal mid loogu diidi karaa sharci iskaashataan kama shaqeyn karo oo wadooyin baan leenahay iskaashataan wixii ku xadgudba October xaq bay leedahay inay qabato laakiin xaq nooguma leh in la yiraahdo waxa weeye gurigaaga gali gabadhaada qaadin aruntaada gali wadadana hamar war wadada 6 bilood baa laga qaaday arrimo ka jira gobolka maalmahan oo ku saabsan tigaha iyo basaska labada iskaashato oo waxa weeye gobolka wada shaqeeyo runtii iskaashatada hoose hadaan nahay ee tigaha waxaanu cadaalad darro badan ka tirsanaynaa oo tacaddi badan ka tirsanaynaa madaxda gobolka degmada qaybta bilayska haddaan faahfaahin ka bixiyo cabashadaanu qabno iyo tacadiyadaanu tirsanayno iskaashatadu waxay ka shaqaystaa hodol qaylo iyo balaase ayay rakaab ahaan uga shaqaysaa iyo xukumo iyo sibakta xaafadaha noocaas waxaa jirta xaafadda October waxaa ka shaqeeya baska tugtu waxay ku tagtaa ingeed bas bukabay qaadaa xoolay qaadaa raashin bay qaadaa waa gaari waxa weeyaan adeeg dadka safar jaban ku geeya gurigooda waxa weeyaan taa annagoo ula tagnay oo saa ugu shaqaynayna ayaa waxa weeyaan taliska qaybta bilayska gobolka iyo degmada iyo waxa weeyaan gobolka ee barasaabka saddex iyagoo waxay amar ku soo saareen in aan tigi marin October hadday maran tahay iyo hadday qof sido iyo hadduu isku wado intaba inay xarig tahay ay yiraahdaan ninka October jooga ninka October wada in la yiri gurigaaga qaban waa uu dadtay oo qof xanuunsanaya qaad oo adeeg waa qalab xaafadaada inta aan tiglaan ma raacsan ninka tiglaha intuu xagga qabto soo boobo basas waa khaladaad laakiin waan ka xumahay ninka la yiri gurigaaga ma hordtay kartid gabadhaadi ma qaadi kartid hooyada ma qaadi kartid laamiga ma mari kartid waxaas oo dhan baa lagu sameeyay waayo taan marka taa la sameeyay taasi ay suurto gasho bilis suurto gelin waxa weeye basasku wadada way nala mara ardayday qaada geeday qaada xafladay qaada wax walba way qaada laba gaaraan kala nahay waxaan tacaddi ugu hayaa basaska iyo dawladda wada socda oo ciidanka boolisku ka mid yahay maamulka qaybada maamulka gobolka badda waxaana la weydiinayaa wadada gurigeeyay ilmahayaga midna ma qaadi karo 100,000 oo ganaax aan meel allaal meel u haysto cashuurna loogu lahayn waxba loogu lahayn sharciga uu noo dhameystiran yahay iyana la weydiinayaa marka waxaan dowladda sare ka codsanaynaa in waxa laga qabto muwaadin ma nahay dadka u dhashan nahay dadka lahaabaan nahay in gaadiidka tigta ayaa ah gaadiid u fududeeya bulshada gobolka Togdheer inay si fudud kala gudbaan xaafadaha magaalada Burco. Cabdiraxmaan Ciise, telefishinka caalamiga Soomaali Cable, Burco.